tan iyo xilligii Kenya ay heshay xorriyadda 1963 ayaa gobollada kale ee dalkaasi ay horumar ka sameeyeen dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, balse gobolka waqooyi bari Kenya uu weli yahay mid aad u hooseeya. Shacabka ku dhaqan gobolkani ayaa boqolkiiba 95 ah Soomaali, halka inta kalena ay yihiin qowmiyadaha kale ee dalkaasi. Gobolkani ayaa leh 3 caasimadood oo kala ah Wajir, Mandera iyo Garissa, kuwaasoo ilaa xilligan aan lahayn waddo laami ah ee xiriirisa. Dhanka kale, shacabka ku dhaqan gobolkani ayaa dhibaato aad u weyn ku qaba qaadashada sharciga sida kibaandhaha dhalashada iyo baasaboorka, iyadoo dhammaan gobollada kale ee dalka Kenya ay leeyihiin xarunta laga bixiyo baasaboorka, balse gobolka waqooyi bari weli aan lahayn xarunta baasaboorka, iyadoo siyaasiyiin badan ay isku dayeen in arrintaasi ay wax ka bedelaan, kana codsadeen dowladda in ay xafiisyada bixinta baasaboorka ay ka suurageliso dhammaan magaalooyinka gobolka waqooyi bari, balse arrintaasi ayaa ilaa xilligan wax aan ka suuragelin. Sanadooyinkii u dambeeyay waxaa isa soo taraya cabashada dhalinta shaqo la'aanta ah, kuwaasoo ka codsaday dowladda in ay u sameyso shaqo abuur.